Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashana qiimaha badan meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa Hoggaan Media oo alaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Qodobada wararkeena maanta aan ku soo qaadan doono isla markaana halkan aan ku qaada dhigi doono waxaa ka mid ah Iran oo sheegtay inaanu mar dambe weerari doonin dalalka dariska la ah haddii weerar aan laga soo qaadin. Qatar waxay sheegtay in ay qabatay gantaal ku soo socday dalkeeda. Sidoo kale Iran waxay raaligelisay dariska haddana qarax laga maqlay Dooxa. Qatar oo sheegtay khatartii amni oo la baabi'iyay kooxo Kurdiyiin ah oo qorsheynaya weerar dhulka ah oo ay ku qaado Iran isla markaana ay Iran ka hortagayso. Iran oo weerartay markab shidaal oo maraya marinka Hormuz. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan duqeymo Israa'iil ka fulisay Iran oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Duqeymo Israa'iil ka geystay Lubnaan oo dad badan ay ku dhinteen, qaraxyo waaweyn oo laga maqlay Tehran, iyo Israa'iil oo sheegtay in ay duqeymo waaweyn fulisay. Haddaba maxaa ka jira Sacuudi Carabiya inay burburisay drone iyo gantaalo? Tirada dhimashada Iran oo laga cabsi qabo in ay kor u dhaafto 1300. Qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha ayaa halkan ku qaada dhigi doona. balse haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka like inaad noo saarto, channelkana aad subscribe noo saartid. Haddii aad horey noola joogtidna fadlan waxaan kaa codsanaynaa in aad muuqaalka la wadaagtid asxaabtaada si meel dheer u gaaro, aragtidaadana aad nooga reebtid qaybta faallada. Mahadsanid. Aan ku bilownay wararkii ugu dambeeyay ee Iran oo sheegtay inaan mar dambe ay weerari doonin dalalka dariska la ah haddii weerar aan laga soo qaadin. Haddaba dadweynaha Iran ayaa saaka ku soo toosay qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Tehran iyo meelo kale oo dalka ka mid ah, iyadoo dagaalka ay bilaabeen Mareykanka iyo Israa'iil uu galay usbuucii labaad isla markaana aan u muuqan wax calaamad oo muujinaya in uu hoos u dhacayo. Madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in golaha ku-meel gaarka ee hoggaanka dalka uu go'aamiyay in Iran aysan mar dambe beegsan doonin dalalka dariska ah haddii aan weerar laga soo qaadin dhankooda, ayuu yiri. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu raaligelin ka bixiyay weeraradii maalmahan la soo dhaafay lagu qaaday dalalka dariska ah. Qatar oo sheegtay in ay qabatay gantaal ku soo socday dalkeeda. Wasaaradda difaaca dalka Qatar ayaa sheegtay in ciidamada difaaca cirka ay joojiyeen gantaal laga soo tuuray dalka, isla markaana maamulka faahfaahin uusan ka bixinin tirada gantaalada lagu soo riday ama bartilmaameedka la doonayay. Iran waxay raaligelisay daris haddana qarax ayaa laga maqlay magaalada Dooxa. Wariye jooga Dooxa ayaa sheegay in wax yar kadib markii madaxweynaha Iran uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu raaligelin bixinayo weeraradii lagu qaaday dalalka dariska, isla markaana uu sheegay in Iran aysan dooneynin in ay weerarto dalalka Carabta, haddana qarax kale laga maqlay cirka magaalada Dooxa. Daqiiqado kadib warkaas qayladhaan amni ayaa laga dareemay magaalada. Qarax laga maqlay waxaa loo maleynayaa in uu ahaa gantaal la qabtay oo hawada lagu burburiyay. Lamase oga in fariinta go'aanka dowladda iyo ciidamada Iran ay isku mar ay gaareen iyo in kale, balse xaqiiqdu waxay tahay in qarax kale laga maqlay wax yar kadib hadalka madaxweynaha. Isla Qatar oo sheegtay in khatartii amni la baabi'iyay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Qatar ayaa fariin digniin ah u dirtay ama ugu dirtay taleefanada dadka, iyadoo sheegtay in heerka khatarta amni uu sare u kacay. Daqiiqad yar kadib ayaa fariin kale lagu sheegay in khatartii amni ee la baabi'iyay isla markaana xaaladdu caadi ku soo laabatay bay yiraahdeen. Dhinaca kale, koox Kurdiyiin ah oo qorsheynaysa weerar dhulka ah oo ay ku qaado Iran. Hogaamiyaha ururka Khabaad ee Kurdiyan Iran oo saldhigiisu yahay Ciraaq, Babasheekh Husseini ayaa sheegay in ay jirto suurtagalnimo weyn oo dagaalyahanada Kurdiyiinta ah ay weerar dhulka ah ay ku qaadaan gudaha Iran. Wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in Mareykanka la soo xiriiray kooxdooda kana hadlay suurtagalnimada iskaashi mustaqbalka, ayuu yiri. Husseini wuxuu sidoo kale yiri Mareykanka si toosan lama uusan kulmin, balse wuuna la soo xiriiray anagoo marayna wadooyin kala duwan, waxayna nagu weydiiyeen sida loola tacaali karo nidaamkan iyo haddii mustaqbalka iskaashi la sameyn karo. Hadda weerar ma wadno, laakiin qorshayaal badan ayaan horey u dejinay, waxaana jirta suurtagalnimo weyn oo aan tallaabo ku qaadi karno. Wuxuu sidoo kale sheegay in haddii howlgallo militari ah la bilaabo uu u baahan doono hub casri ah,
walxo qarxa iyo qalab militari oo horumarsan, maadaama qalabka ay hadda ay haystaan uu yahay mid duug ah. Iiraan waxay weerartay markab shidaal oo marayay marin-badeedka Hormuz. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Islaamiga Iiraan oo loo yaqaano IRGC ayaa sheegay in diyaarad dagaal ama diyaarad drone ah oo ay ku weerareen markab shidaal qaada oo lagu magacaabo Prime, kaas oo marayay gacanka Khaliijka meel u dhow marinka badeedka muhiimka ah ee Strait of Hormuz. IRGC waxay sheegtay in markabka la weeraray kadib markii uu iska dhigi tiray digniino dhowr ah oo ay bixiyeen ciidamada badda Iiraan ee ku saabsan khatarta marinka. Sida ay muujisay xogta mareegta Marine Traffic, markabkan Prime wuxuu sidoo kale sidaa shidaal iyo kiimiko, wuxuuna uu ku diiwaan gashan yahay calanka dalka Malta. Israa'iil waxay Iiraan ka fulisay duqeymo sababay dhimasho. Mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Isfahan ee bartamaha Iiraan ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen duqeymo ay ka wada fuliyeen Mareykanka iyo Israa'iil. Mas'uulkaasi Akbar Salaahi ayaa sheegay in 8 qof oo rayid ah ay ku jirto haweeney ay ku dhinteen weerarada diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Israa'iil oo garaacay magaalada Isfahan iyo 7 magaalo oo kale. Ku dhawaad 80 guri ayaa si daran u burbureen. Duqeymo Israa'iil ay ka geysatay Lubnaan oo dad badan ku dhinteen. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen, 33 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo Israa'iil ka fulisay magaalada Nabijid ee dooxada Bekaa. Tan iyo markii dagaalka uu bilowday, in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhintay Lubnaan, ku dhawaad 95,000 oo qof ayaa barakacay. Sababtu waa amaro ay Israa'iil ku bixisay in dad badani laga daadgureeyo koonfurta Lubnaan iyo xaafadaha koonfureed ee Beirut. Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay Tehran. Wararka ka imaanaya gudaha Iiraan ayaa sheegaya in qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada Tehran. Telefishinka dowladda Iiraan ayaa sheegay in qaraxyada laga maqlay meelo badan oo caasimadda ka mid ah, balse weli lama shaacinin goobaha sida saxda ah loo beegsaday. Israa'iil waxay sheegtay in duqeymo waaweyn fulisay. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 80 diyaaradood oo dagaal ah habeenkii weeraro ku qaadaan Iiraan iyagoo tuuraya 230 iyo gantaal oo bam ah. Goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah jaamacadda militariga oo IRGC ay leedahay, goob kale oo lagu keediyo gantaalada, xarumaha dhulka hoostiisa oo lagu sameeyo gantaalada balastiga ah. Sacuudi Carabiyana waxay burburisay drones iyo gantaalo. Wasaaradda difaaca ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay difaacyada cirka ay burburiyeen 2 drone oo kale. Mid waxaa lagu soo riday bariga magaalada Riyadh, mid kalena wuxuu ku soo dhacay ceel shidaal oo ku yaala saxaraha Rubc al-Khali. Tirada dhimashada Iiraan oo laga cabsi qabo in ay kor u dhaafto 1,300. Warbixin laga helay gudaha Tehran ayaa sheegaysa in tirada dadka ku dhintay dagaalka ay markii hore gaartay 1,300 oo qof, isla markaana la filayo in ay sii kordho. Waxaa la sheegay in weeraradu aysan ku ekaan goobaha militari oo keliya, balse ay gaareen isbitaallo, dugsiyo, xaafado dad ay degan yihiin, xitaa beero dadweyne. Ururka Jaamacadda Carabta oo kulan degdeg ah yeelanaya. Wasiirada arrimaha dibadda ee ururka Jaamacadda Carabta ayaa Axadda yeelan doona kulan degdeg ah oo looga hadlayo weerarada Iiraan lagu eedeeyay in ay ku qaaday dhulalka dalalka Carbeed. Kulanka ayaa codsaday dalalkan Kuwait, Sacuudi Carabiya, Qatar, Cumaan, Urdun iyo Masar. Dagaal dhulka ah oo dhexmaray Xisbullah iyo ciidanka Israa'iil bariga Lubnaan. Iska horimaad dhulka ah ayaa dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada ururka Xisbullah ee bariga dalka Lubnaan, gaar ahaan gobolka Bekaa, kadib markii ciidamada Israa'iil ay isku dayeen in ay ka degaan dhulka u dhow xadka u dhexeeya Lubnaan iyo Suuriya. Wakaaladda wararka dowladda Lubnaan National News Agency NNA ayaa sheegtay in dagaalyahanada Xisbullah ay si toos ah uga qayb qaateen dagaalka, iyagoo xaaladda ay ka mid tahay colaadda sii fidaysa ee gobolka ka aloosan, taas oo qayb ka ah dagaalka ballaaran ee ay bilaabeen Mareykanka iyo Israa'iil. Ugu dambeyntii, Trump oo dalbaday isdhiibid aan shuruud lahayn iyadoo dagaalka Iiraan uu galay toddobaadkiisii labaad. Dagaalka ka socda Iiraan ayaa Sabtidii galay toddobaadkiisii labaad, iyadoo aan weli muuqan wax calaamad ah oo muujinaya goorta colaadda la soo afjari doono. Arrintan ayaa sii adkaatay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku baaqay in Tehran ay sameyso
isdhiibid aan shuruud lahayn, halka Israa'iil ay weli isweedaarsanayso weeraro ay la leedahay Lubnaan iyo Iiraan. Hadalkan Trump ayaa yimid saacado ka yar kadib markii madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian uu baraha bulshada ku sheegay in dalal aan laga magacaabin ay bilaabeen dadaallo dhexdhexaadin ah, taas oo si kooban u kicisay rajada laga qabo xal toddobaad kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeymo ku bilaabeen Iiraan. Trump ayaa Jimcihii ku qoray bartiisa Truth Social, wax heshiis ah lama geli doono Iiraan haddii aysan sameyn isdhiibid aan shuruud lahayn. Wuxuuna intaa ku daray, kadib marka taas la gaaro iyo marka la doorto hogaamiye weyn oo la aqbali karo, annaga iyo xulafadeena geesiga ah waxaan si hagar la'aan ah ugu shaqayn doonaa in aan Iiraan ka soo saarno qarka burburka, kana dhigno dal dhaqaale ahaan ka weyn, kana fiican oo ka xoog badan sidii hore. Dagaalkan oo ku fidaya Khaliijka iyo Lubnaan, Trump mararka qaar wuxuu bixiyay sharaxaad kala duwan oo ku saabsan ujeedada dagaalkan, taas oo sii kordhisay suurtagalnimada ah in colaadan ay sii daba dheeraato. Dagaalku horey ayuu u gudbay xuduudaha Iiraan, wuxuuna u ruuxay suuqyada dhaqaalaha ee caalamka, wuxuu sare u qaaday qiimaha shidaalka, wuxuuna abuuray cabsi cusub oo ku saabsan amniga gobolka. Iiraan ayaa jawaab ahaan weeraro ku qaaday Israa'iil iyo dhowr dal oo Khaliijka ka tirsan oo martigeliyay saldhigyada ciidamada Mareykanka, sida uu sheegay safiirka Iiraan u fadhiyo Qaramada Midoobay Amir Saeed Eravani. Duqeymaha Mareykanka iyo Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 1332 qof oo rayid ah, kumanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dhanka kale, weerarada Iiraan ayaa lagu dilay 11 qof gudaha Israa'iil, sidoo kalena ugu yaraan 6 askari oo Mareykan ah ayaa ku dhintay.